markaasaa 250 kiiloomitir madfac gaar ay haystaan garoonada ay ka xireen oo Tel Aviv iyo ereyadeeda garoonno kale u wareegeen markaas waxay ka dambeeyeen waxa dhayn garoonka aad tagteen xataa madfac uu gaaraya Falastiin dhibaatada maanta haysata Ingiriiska ka dambeeyay oo markii gumaystii Ingiriiska uu ka baxay caalamka kale meeshii Falastiin sida uu Soomaaliya uga baxay oo Soomaaliya calankeeda loo taagay Falastiin saasoo kale inuu uga baxo oo iska tagaal rabay Soomaaliya waxay ku maamaahan yaxaas haduu afka kula waayo sayntu kugu dhuftaa Falastiin waxa ku dhacday afkii markuu la waayay muslimiintii kale oo uu ka baxay Falastiin uu saynta ku dhuftay oo wuxuu inaan waan baxayaa Falastiin ma sii joogaaye gumaysta waa la nacay yahuud Yurub laga soo aruuriyay oo dhul la'aan ah oo isa soo dhaafiyeen yaa waxay ku yiraahdeen dhul aan shacbi lahayn oo meel cidla iska oo wax difaacanay jirin ayaa idinku wareejinaynaa kaale halkan soo dega waa halkee waa Falastiin halkan qaata idinka idinku wareeji waa 1948 dhulkan qaata idinka iskale markaas ra'iisul wasaarihii barigaas Ingiriiska waa tudhii jiray qaamad Israa'iil way istaagtay wasatadallu qaa'imatan mad al-hayaa wayna taagnaan doontaa inta nool ay jirto waa suu maleynaya isaga laakiin tii Ilaahay ma ah maxaa ku dhacay laakiin maalinkaas laga bilaabo muqaawamada ay Falastiin bilaabeen inay iska caabiyaan ayagoo duruuftooda ay adag tahay si ay u xoroobaan gobonnimo doon ay u noqdaan ilaa maanta oo 2021 ayaa la soo gaaray maanta xagee joogtaa marka shalay xagee joogtay shalay waxay joogtay shacab miskiin ah oo nin aan dhulka iska lahayn Ingiriis la yiraahdo kuwa kale uu siiyay oo aan mudnayn oo la yiraahdo dhulkaas qaata oo inay isdifaacaan waxa ay heli karaan isku difaacayaan way socotay si kasto isugu dayaan inay baabi'iyaan halkaas qadiyada Falastiin lagu soo afjaro waxay soo gaartay sanadka aan soo dhaafnay markii la saxiixay wixii loo yaqaanay oo Trump uu waday oo la yiraahdo safqatul qarni heshiiskii adduunka ama qarniga oo ahaa shacbiga Falastiin in dawladaha kale loo kala qaybiyo meesha iskaga tagaan in yar oo hadii loo soo reebo dawladaha carabta madaxdooduna ay yahuud caadi u heshiiyaan oo wax la tadbiic caadi in la iska dhigo oo colaad baan yahuud inay colaadad u haysaba aan loo qaadanin dhulkii ay haysatay ee muslimiintana loo xalaaleeyo halkaasna ay arintu ku dhamaato qofkii ugu dhaqdhaqaaqaya iska caabintana argagixisiyo liiska intii lagu qoro halka qadada ay ku dhamaato wayamkuruuna wayamkuru Allah wallahu khayrul maakirin sidii ma noqon ay filaayeen maanta waxay ku calaalay waxay leeyihiin afayaanka yahuud u hadlaaya shacbiga Falastiin waxaan u sheegaynaa ma iga ka noqon miswaa laga celiyo waa masaajidkii waan ka noqonay xaaladda waxaan ku soo celinay sidii ay ahayd markii hore sidaa loo joojiyo dagaalka saaha ahaato maxaa ka keenay marka waxa ka keenay shacbiga Falastiin tabar meeshay dhigtaba way dadaaleen hub ma ina haysanin way ka tirabadeen yahuud way iska celin karaan way ka geesisan yahuuda oo waxay uga geeseen qoomkan oo Falastiin waxay ka soo jeedaan asalkoodii niman la dhihi jiray Amaaliqadii ama Kancaaniyiintii hore ka soo jeedaan waa nimankii Nabi Muuse markii reer Banu Israa'iil uu watay oo muuminiin reer Banu Israa'iil Nabi Muuse nabi Ilaahay ah iyo Kancaaniyiintan oo aan muuminiin ahayn waa Falastiiniyiintan yaa la iska hor imaaday markaas Nabi Muuse wuxuu ku yiri qoladiisii uu la socday muuminiinta ah kaalay magaaladan aan qabsanay waa reer Banu Israa'iil waana muuminiin ayagoo muuminiin rabinay geesi noqdaan يا وحي هذين إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها هذا ماشي ما تقال ميدتك كجرة وادد جيسيال أو خطرة نيموسو إلى دتك سأدوا كسر توي كبحان وماشوا مال بنان أي نون نقطه أنا قوم سوقلينه حتى فإن هذا كبحان مركز أنجلينا مركو كسمري أو رصاص صعدة مايا ادخلوا عليهم الباب وصوغلا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إلهي تلسارتوا كالي أنقلنا أبدا ويديدن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها انت يبقى كجران أنهم مقلين فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون حين هذه إلهي انتهت بحضان أرضا مقالا نوغا سارة كنعانيين هل كان يكسوا إناي مركز كسارتان نوئم هذا مركز أنقليناي مركز موسى إلهي بريحي ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض
horta reer banu Israa'iil oo nabi uu la socdo ayuu xaalkoodu saas ahaa hadda way isdaba martay marka kancaaniyiintii laga cabsanayay geesiyaasha ah ayaa waxay noqdeen al-muqaawama al-falastiiniya al-islaamiya dad muslimiin ah oo iska celinaya reer banu Israa'iil yahuudi oo nabi muuse uu la socdayna hadda sayin yahuuda يهود قاله لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وقرآن كان عيدان أخرين إلهي وكتل مامي وترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون وإسكنها بني آدم إلهي حتى عين يهودا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وعيدا إلهي وبخيل وحمد ما يستو إلهي وحمد بحناي ويهود إن الله فقير ونحن أغنياء إلهي وحمد ما يستو أنك تاجر هل كان سيسوء استاغين ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين يهود السداس أيام ما أنت وحي لدك على ضد مسلمين أو جيسيال أو فلسطينيين ليرادو فلسطينيين تمركا هب الآن يا هيسي موجي هذا هب هلان يهود ومداهيان هذا الحمد لله مركا قنت على ذودي يا وحي دقينا عن عاصمة يهودا سنة دي هو كون وحاود ما يصدقال أو سنة وكلا لبكون يافر يتوانكي لبكون يافر يتوانكي ماشي وجارة يمدفعوده ويصير لمن لابين markaas laba boqol iyo 50 kiiloomitir madfac gaaraya haystaan garoonada ay ka xireen oo Tel Aviv iyo eeriyadeeda garoono kale u wareegeen markaas way ka dambeeyay waxaan garoonka aad tagteen hataa madfac uu gaaraya maxaa naga qaadaysan markaas yahuud maanta waxay u kala ordayaan naga soo gaara dilaaladii carabta markii si lagu yaqaanay ayaa soo kala ordayeen dagaalka la joojiyo waa goorma marka diinta Ilaahay baa iskale mowqifkeena marka آيات القرآن كأخرنا وحين ذلك مسلمين تا موقف كذا حالة ربا إما إن النقدان موقف كمهاجرين تا أو إلهي يري الذين أخرجوا من ديارهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أو دور كاسمات وحامة تلايا ذلك الجريوه الله جساري واكوه واريف فلسطين كوا مال كذا لجلو وريجي واكوه واريف فلسطين هذا الساس أي تاي وحالة يكون تاي وينصرون الله ورسوله إلهي رسولك سيئو قرقان مرنا اسمين الديبين وحاكا الله أماني دادكي قرب سيئي وأنصار أو مهاجرين وكالمي ريم مدينو أنصارنا يال ربعين النقضان مسلمين تكالي شيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس الشهيد بإذن الله رحمه الله أيا كون سيال بقول سيغاشا يسيدي يو السودان محاضرة نوجي دي سيب مباشر واللايف أهو أنا أهين يعني محاضرة سنكقب قال أنا وحنو يري شعب أنا فلسطين هدانا قد يقدر هي فلسطين واجب كوكوات أنا نصارنته مسلمين تا هدان مثالي هي فلسطين وحيلم يجيهين سيدا ورنك أو كلا ورنك عارض أما أفوحوا ليه هاي دوبان أو برعة أو لغدروا عدوغا إيوه داب جدال كجحرا ورنك أو لقبصده أو ورنك سلغطوره مسلمين تا وحان كرمي أننا وحان هاي عارضي أما فيدي وحان هاي مسلمين تا أو يهود أننا لا دقن أننا لا دق علينا مسلمين تا وحان كرمنا داب إنا ينون نقدان أو إنا صوت تاغيران مركا داب كاسا على بينا نقنو سينكو تاغيرينا شعب الصومالي أن هاي شعب الصومالي أن آدو حقوق مهسية أسوا حتى كلا قيبسان أو نحدي سلغا يابا إنا يصدق عليان يهود مركا ينقطو واسكو موقف آذين يهود ونعبين شعب الصوماليات قف كي ربعنا عيان عيان أقول دم بيس أقول حنا كي ربعنا كل فتان وحيكون عيان يهود الله ويكن بمعنى سيء نعبيين يعني مال وقدم بيس عايتين مجرته محاكا كينيس حدود مليهن ده سويدين ملتين سيكون عضي وحيساكون عيسى اسكو وحنا هاي دران أو حنا اسكو دران ونهاي أيجنا بريق ده مشكلة كتاجن اللي هو جميسنايو أي فلسطينيين تو مسلمين تو مثلاً أو يهود